waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii xaqiiqa raadis kaasoo aynu da-a kaga rogi doono qodobo ay ka mid yihiin xaalada laascaanood oo caawa aada u kacsan qaar ka mida ciidanka beesha jaamac siyaad oo wacad ku maray inay weerarayaan qudhana ka jarayaan garaad jaamac garaad cali ninka la yidhaahdo gala dagaalka oo haatan qandaraas ka soo qaatay madaxweynaha maamul goboleedka puntland in laascaanood puntland lagu daro doorashadana ay ka qayb galaan iyo qaybo kamida laascaanood oo calanka somalilan laga taagay. waxaa kaloo kusoo qaadanaynaa barnaamijka garaad mukhtaar oo puntland ka baxsaday una cararay kenya khashifayna in qaar garaadada reer laascaanood ama dhulbaante kamid ay dadkooda khiyaamaynayaan. iyo waxaa kaloo kusoo qaadanaynaa barnaamijka safiirka soomaaliya u jooga turkiga jaamac cabdilaahi caydiid ayaa ugu baaqay dadkiisa reer laascaanood inaanay ku daalin maamul khaatumo oo aanay soconaynin filinkaasi. safiirka iyo garaadgala dagaalka oo mashruuc soo wada qaatay ayaan idiin hayaa. iyo dhinaca kale waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka xisbiga ucid oo ku baaqay in ciidanka qaranka somalilan la howlgeliyo si ay ula dagaalamaan kooxaha alqaacida iyo al-shabaab oo uu sheegay inay soo galeen oo isku ballaadhinayaan bariga somalilan. warbixin dheer oo markaas ingiliish ku qornayd oo ay u direen wadamada caalamka ayay ugu baaqeen markaa wadamada caalamku inay somalilan ka taageeraan dagaalka argagixisada ka dhanka ah kaasi oo markaa hadda kusoo duushay qarannimada somalilan. qodobada iyo qodobo kale ayaynu da-a ka rogaynaa. kusoo dhowaada barnaamijka. waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka sida aynu ognahay waxaa maanta booqasho ku yimid magaalada laascaanood garaadka guud ee beelaha dhulbaante garaadgala dagaalka ina garaad cali daraas buu soo qaatay waxaana uu markaasi hadda bilaabay ololo weyn oo ka dhan ah wixii ay ugu yeedhi jireen khaatumada. garaadgala dagaalka ayaa wuxuu heshiis la saxiixday sidayn barnaamijka horeba ku faahfaahinay madaxweynaha maamul goboleedkaasi puntland ee daney kaasi oo hadda inuu kala diro doonaya wixii khaatumo lagu yeedhi jiray laascaanood lagu sameeyey. haddaba wuxuu sameeyey filin ninkaasi markaasi garaadgala dagaalku wuxuu soo kaxaystay ugaaska guud ee beelaha mareexaan si ugu qanciyo marka garaad jaamac garaad ismaaciil in puntland lagu biiro. filinka waxaa lagu matalayaa shirweyne daarood ayuu ku dhawaaqay maanta garaadgala dagaalku isaga oo markaa kaadhka keliyaata ee marka dhulbahanta dee isku kacsan yahay lagu mideeyaa inay tahay magaca daarood marka kaadhkaasu isticmaalaya ula soo baxay waxaanu leeyahay shirweyne daarood lagu midaynayo ayaynu samaynaynaa. ujeedkuna waxa weeyaan marka in garaad jaamac garaad ismaaciil lasoo xeerogeliyo kaasi oo hadda laascaanood garaadka keliya ku haray ah. marka garaadadii kaloo dhan markaa puntland bay tegeen badankoogu marka waxaa haray ina garaad ismaaciil iyo moogtahay garaadka isna garaad mukhtaar oo markaa isaguna ka baxsaday maanta puntland oo u cararay halka iyo kenya nairobi buu kasoo hadlay. wuxuu soo qoray markaasi bartiisa twitterka uu soo dhigay message kaasi oo uu sheegay in garaadadii ay khiyaameynayaan ama isimadii dhulbaantay dadkoogii oo markaa maamulka ACC xili oran jiray ay gowraceen gacantoodana ku markaasi deebireeyeen saa darteed dadkoogii ay khiyaameynayaan. waxa uu yidhi markaa waxaan kala garan laayahay laba mid. wuxuu yidhi waxaan garan laayahay in ay markaa isimadii dhulbaante u bareedheen khiyaamada dadkooga ay khiyaameynayaan amase waxaan isleeyahay buu yidhi dee guddida doorashada u qabanaysa puntland baa wareersan oo jaah wareersanoo xisaab qaldan bay isku dhubsadeen. si kasta ha ahaatee waxaa jiray markaasi qorshe garaad jaamac garaad cali uu markaa ugu talagalay inuu garaadada dhulbaanto o dhan iskugu yeedho laascaanood halkaa uu shirweyne ku qabto uu ku ballamiyey laakiin way ka kala yaaceen. waxaana hadda markaasi filinkii ugu bedelay inuu dhahdo daarood baan midaynayaa. ninkan mareexaan uu soo kaxaystayna waa sasabaad si uu iskaga qabto markaa jaamac siyaad oo kacsan weyn ogeyn muuqaalay soo duubeen moogta ciidanka jaamac siyaad kaasoo dhalinyartoodu maalin dhowatoolo ay wacad ku mareen. mid kamid a dhalinyartu hadlay waa kiilaha 3 qori baan haystaa 3daa qori 3 garaad baan ku dilayaa buu yidhi oo carwaa garaadka dhex yidhaahda buu yidhi markaa laascaanood puntland baa lagu biirayaa. markaa way kacsan yihiin ballan baanay ku qaadeen markaa inay dilayaan garaadada. caawa wararka naga soo gaadhiya laascaanood waxaa la sheegayaa in markaa ciidankii beesha jaamac siyaad ay u diyaargaroobeen inay weeraraanba
meesha uu hadda ka degan yahay garaadgala dagaalku laascaanood waxaana la sheegay in markaa qaybo kaloo kamid a markaa waxgaradka jaamacsiyaad hor istaagaan ay leeyihiin waxaa la socda ugaaskii markaa mareexaane meesha ay nagu ceebaynina iyo dee magaciida kaarka daarood baa lagu joojinaya mogti daarood baa nala yaabi doona mogti fili noocaas ayaa lagu xakameeyey laakiin jawaahiirta halkaa joogta waxay wararku sheegayaan inay ka go-an tahay inay dilaanba garaadgala dagaalku ay ku tilmaameen khiyaanoole inuu markaasi mabdi ay u dagaalamayeen khiyaameeyey oo iibsaday bay yidhaahdeen oo siday ku eedeynayaane si kasta ha ahaatee waxaa jirta sida oo kale calankii somalilan oo markii ugu horreysay laga taagay laascaanood calaamadii maanta lagu soo dhaweynayay garaadgala dagaalkaba layidhi waxaa ku jira calaamadiisu calankii somalilan tan iyo moogta xiisada ama dagaalka laascaanood intuu bilaabmay muddada hadda 11 bilood ku dhow calanka somalilan sidee moogta rasmiga loogama taagin laascaanood oo 11 bilood buu ka maqnaa maanta lagu arkay inay markaa dhalinyarta beesha jaamacsiya qaar ka mid ah sitay baa layidhi oo markaa iyaguna waxay ku doodayaan hadda maadaama uu garaadgala dagaalkii iyo moogta qaar kale ay khiyaameeyeen iyagii dee meesha moogta qorshihii ahaa khaatumada ay markaasi dhabar ka toogteen in iyaguna ay dhabar kaga tooganayaan garaadka qorshihiiso ay somalilan dib ugu noqonayaan waana sababta hadda lagu arkayay baa layidhi calanka somalilan oo laga dhex taagay magaalada laascaanood oo dhalinyartu ay sidatay sidoo kale waxaa la sheegaya haddaba caawa in ammaankiisa loo cabsanayo garaadgala dagaalka oo laga yaabo moogta qayb jamaahiirta ka mid ahi intay u gasho halka ay kaga takhalusaan sida oo kale waxaa jirta ninka garaadgala dagaalka la yidhaahdo ee fidmadan de hadda dagaalka laascaanood ka abuuraba ninkii bilaabay ahaa iyadoo shirweyne moogta ina garaad ismaaciil iskugu yeedhay ka dhex kacay yidhi hala dagaalamo go-aanka degdega iska qaatay isaga oo moogta dee ninkii martida lahaayee moogta arrinkan de iskugu yeedhayba aanu weli go-aan gaadhin ayuu halka ka khiyaamiyey marka waxaa jirta in hadda beesha jaamacsiyaad aada ugu kacsan tahay ninkan moogta dee garaadgala dagaalka laga yaabana markaa in ay sida uga argoostaan dhinaca kale garaadgala dagaalku filinkan uu soo degay ninka u fadhiya moogta safiirka soomaaliya u fadhiya turkiga ayaa beel ahaana dhulbahantu kasoo jeeda waa raggii dagaalka laascaanood xoog uga qayb qaatay ee lacagaha ugu badan dibadaha kasoo ururinayay ninkiibuu soo tashkiiliyey waxaanu xaggii federaalku kasoo maraya moogta ninkaas isna xalay toole wuxuu isla soo istaagay goob moogta dood cilmiyeed wax ka taagnaayeen in allaal wixii khaatuma la yidhahda aanay soconaynin waxba kama jiraan buu yidhi ha isku mashquulinina federaalka ayaad moogta ku biiri doontaan iminkana systemkaad ku biiri lahaydeen kale ayaa la raacayaa yacni taasoo ayna markaad le puntland ku biirtaan halkaasuu ka wastaynaya moogtahay taasi oo amakaa ku noqotay dad badan laakiinse waa kaadharhka uu sito markaa ninka garaagala dagaalku uu doonayo in jaamacsiyaadka xitaa moogta lagu sasabo si kasta ha ahaatee labada garaad ee ilaa iyo hadda loo taag laayahay ee uu qaban kari laayahay garaadgala dagaalku waxa weeyaan garaad mukhtaar oo hadda baxsadayba oo ka tagay garowe xitaa mowqif cadna qaatay inaanu marna aqbalaynin moogtahay in puntland lagu biiro iyo ina garaad ismaaciilo isna laascaanood fadhiya kaasi oo leh haddii aan puntland ku biirayno somalilanba lamaanaan dagaalaneen oo dee waxtarka iyo moogtahay marka leegada dhaqaal ahaan waxa u fiican laascaanood way ogyihiin in moogtahay somalilan sii joogaan oo yacni fanka iyo moogtahay dee dhaqaalaha iyo horumarka ay somalilan gaadhisay laascaanood iyata waxa garowe u yaala labadaba way garanayaan tii roon saa darteed waxay leeyihin anagu ma aqbalayno marnaba inaan puntland ku biirno somalilanteeda horaan joogi lahayn marka ay khiyaamo qaran lagu sameeyey oo uu garaagala dagaalku dhabarkii ka toogtay ay hadda u haystaan markaa jaamacsiyaad garaadkoogii ilaa iyo bulshadoodii oo dhan haddaba waxaa isweydiin leh oo su-aashu ay tahay ugaaskan mareexaan uu soo kaxaystay garaagala dagaalku talow ma u qabsoomi doonaa garaadshacgala ismaaciilo arrinkaasaa ma ugu dhammayn karaa inkastoo ay falanqayaal sheegayaan xitaa haddii uu jaamacgala ismaaciil sidhaahdo aqbal dee bulshadii iyo jamaahiirtii kale ee jaamacsiyaad ayaan aqbalaynin marnaba in puntland lagu biiro markaa lafihiisa u cabsanayaaba moogtahay garaadka laftarkiisu baa la leeyahy wixii kasoo kordha waa inoo barnaamijyada dambe nabadgelyo.